مدودنا فهموا مولد ما دقن بلا قرشن صحابته asxaabta mawlid may dhigin صحابه مولد بدقن بلا مكا مولد بدقن صحابه dhigitaan بلا سكارد صحابه مولد كذا هيسا su'aalaha gaandho صحابه أنا وش su'aalaha gaandho ma dhameeyaan su'aalaha qorta markii isaga u gaadho konta ka midnida haysateen taariikh adaa inoo haya dabara wala waxa jirta maslaxad darteed baa loo sameeyay baan yiri mawlidka nabi maxamed maslaxadaasna waxay tahay inaan maalin walba la isku iman karayn hadeerto islaamkii batay caalamkii batay jacaylkii maxabada iyagu hayeen inaba inaynu gaari karin haddii leeyihiin waa la gaari karayaa hadhow markay dooda waqtiga u gaadho inoo sheegaan su-aashan iyaga weydiina waxay tahay hal maalin iyagu ma isku imaadaan iyagoo siira dhigaya way isku imaadaan iyagoo dhigaya way isku imaadaan dee waaniga waan soo wada maxadadoo siira ku dhigaan siiradu ma wax cumuuma bay dhigayaan oo ummadda oo dhan gaadhisaba mise waa wax gaaroo lacag ay ku qaataan oo mushaar baad maxad ku qaadanaya haa masaajidka lagu dhigo kutubta siirada ee dadku wada fadhiisanayaan in xalqad gaar loo gelay ila weyneynay nabiga alay tilmaamo siira laga wada hadda siirada dawladda adu siirada dhigtaa sheeshu weydii waxa tahay in ardayda u dhigaysid ma horta ma lacag ma ka qaada sax dadka oo dhan ma imaada si mawlidka loo imaado maalinkaas oo kale oo mayda si cumuum inta loo imaado ma loo dhigaa oo dadka oo dhan ma wada gaaro maalin astaysan ma u tahay dad oo u tirayso marka iyagu ma lacag u beek wax ku dhigaan baad leedahay marka siirta dhigayaan lillahi baa u dhigaan laakiin waxaan ku leeyahay yani weynayd maalinka anagu tan aanu sameynay wax leegoy sameeyaan ma jiraa مالك ما حد يسأل شو مالك موليدك حفلة النبي محمد قدقنا إنه كقشة كنا تاريخ دي كد عظم بري الله قلبات عالم الإسلام ماله دقة وإنه كد متشرت حتى السعودي العربي وكد عظم متشرتها ماله أستيسان أو تاريخ النبي قاعد كشة كيسان تاريخ شمحد بن عبد الوهاب أسبوع والله يواد عضي وكتبت أنا كتاله رت هذا الكل يحكي لي ما فعلا موت إلا كلا سلسلة فعلا هرنا وصغرنا والنبي أمان سمديدنا سلاد اللي حنكو آخرنا اللهم صل على محمد من أمانهين وانا اخرنا تمديدن ما حابين نبي نمديدن سيريس ما اخرنا سيريس وانا اخرنا تمديدن ساساي مركا ادي ويديس موت هذا كما بدل موت امانتك ويدينا وحول لكن ما نقرن نسوق ماده ما نقرن ان عياتي ما مسننتي يا لكن سيدا وانا اخرنا كما دغنا انا وانا اخرسنا ها هذا كما وريغا موت iyo wixii hadin in yar iga raali ah in badan baan ka raali ahaana waan in dhigeysanay waxaan jecelahay in inta hal su'aal ay soo dhexgelin لأن محايل واحد دوني إنا تابتو إمام يدا ندى اللي يرد ماتا إنا إسهر فردينو دين تن ماتا إنا وكون أفر بقول إيا مريسا إمام يدا إنا سوى قارسي رقبا كتابتا صوحن باري حديث النبي رقبا صحيح يا ضعيف يا سقيم كاردقاي رقبا وحا للدليشان يا إنو سمي أصول الفقه إنو كاور مني وحا للدليشان يا وحا آن للدليشان مركا شرعا للجوغ رقبا دقا قرري marka laga yimaado rasuulkii salawaatu rabbi wa salaamu calayh shariicadan ba ilaahay inoogu soo dhiibay rag baa soo saafay way saafan tahay ma aha mid maanta aynu odhanayno laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun xasana aayadaas waxay sheegaysaa inaan rasuulka loo ixtifaali karin oo aad micnihii daliilka ugu cuslaa ama malakul mudafar ama faatimiyiin baa sameeyey bal ilaa arrinkani maaha arrin imika bilaamay لحظة بقول وقتها شن بقول بكسب شن بقول يتطبعتك اللي قصوا بالعبو هجرية إلى يومنا هذا الرجي أحاديث صحيحة يا سقيمك ضعيفك كل شيء محي أكيد هذا حتى إمامية ذو ذدني أكيد ودلي شدان أما اعتقادك يأرك أي كد لي شدان أيام قبل عبد الدونا وحي إمامية ذي ديتن إن سوق رسي كتابته إنه حديث القرآن كي واحد بين سوق رسي مفسرين محدثين وحي كيد هذين أيام تحت دونا مركا أمر رجع إنه دو إجماع يعني مثلاً إن إجماع تهاي سكسنا الله دقي يوليبا وينينتن السؤماتكن تياتر هذين كل مت أعماش خير كأيا كلا كعكينيسة أو تاسع مشكلة إن السن مشكلة هين أنت أصل شيء لكل مية أو إجماع تهاي أو إمامية ذي كتاب ده لو جد بدفنين أي هذين حتى إمامية ذي أيا كبلاب دونا وح كبلاب دونا ابن تيمية أو أكبر شيخ يعني مذهب الوهابية أقولك واحد الدنيا إلا قيحه هذا لك أنتوا جود كسرين مع دانيو ابن تيمية أيه وهابي اسمك أرنك شيخ محمد عبد الوهاب مركز لقي ماله عدة ودليشة يسون اعتمادي هو ابن تيمية يا ابن عبد الوهاب ها ابن عبد الوهاب ود كن يلا ودي بقولها
kun iyo 11 يعني 11 سمين هجرية وسيدا يعني waxaa ka soo wareegtay gaday ubad 300 sano uu noqonaya marka taariikhda mawlidku bilaabmina waa 500 samahayn يعني qaabkan faraha badan ee ijmaac ay leeyihiin qaabkan in loo dhigaa mamnuuc ah oo acmaashi midmid baan u ogol lahay Soomaa acmaashi hadaa midmid u ogashiin in la jamciyeyna 500 bay bilaabatay 500 ilaa imika la dhigayay wix allaale wixii imaam diintan in soo gaarsiiyayna wax bay ka yiraahdeen ma yagi baan qaadanaa misatiina maanta maxaa loo jamciyay baan qaadanaa waa midaas waxaan su'aalahan qorta ibn abdul wahhab intaan ka hadlin ibn taymiya juska fataawidiisa juska 3 safxada 3 اللهم juska 3 safxada 134 يقرأ وفي فتاوى ابن تيمية شيخ الوهابية waxa uu qabaa safxada 3 اللهم juska 3 safxada 134 فتعظيم المولد النبي dhalashadiisa la weyneeyo watiqaaduhu muusiman in muusim laga dhigto muusim xaliyaad meel la isugu yimid ama muusim sanawi oo sanadkii mar la isugu yimaado ama meel la isugu yimaado قد يفعله بعض الناس دتك إن بدنا كم إذا نسمي الأركا أركن وأرن سنة وأرن دتك قارن سمي كان قارن مباحوي وين سمي كان دتك قارن استجلس ساعة وحتاني وأرن دتك كلا بري أي سميان وقت جاء إلى إمك وقت جاء بلا إلى إمك دتك مو سميان ده أنت يكون برقاصن دونيس أعماشن إنه كل مسو خيرات كا هذا قلاتين مدمر إن الله سمايو أنت هذا كل مسده نكى مدمر السماي كريان مدمر كيس السماية محول المركا ابن تيم محول هي dadka qaarkood waa amaal ay sameeyaan inay muusim ka dhigtaan muusimkuna waa taalidii maxaa sanadkii mar looga dhigaya isaga laftiisa qiraya maxaa hadaba laga helayaa wiili wa yakunu lahum fiha ajrun cadiim waa midfac ugu weyn cidda diidaysa maanica ku dhacaya weeyaan waa daliil waa meesha u dhimatay micnihi sheekhaagii adigiyo kala qowl noqdo waa mushkilad waa sababta keentay inay sheekh gooniyo sheegay waa salafkii oo dhan baa naga noo sheekh وابن تيمية هو الشيخ هذه يعني عمدة وين شيخ الإسلام ببلغي لازمه وحليه هاي هذا الذي سكت به هذا حتى على وقت به يجري تن مركا ويجي مركا ساعات سيدابه هيد تاسي دليل من غنسة مثل البدع بمركا هذه الغنسة أكثر وين نواليه لي أبير لحسن قصدهم أكثر كويه ليان قصد كون وناكسين أصمينيان قصد وناكسين بيقول لي هنا أعماشا وحين سلقرني إن مدمر إن الله سمي النبي إن سلقي سلا آخريه إن سيريس laga sheekeeyo in dadkii lagu booriyo la baro lagu tacliimiyo dhalinyaradii waayeel waxa isla qirnay midmid marka afcaasha la sameeyo mawlidka oo dhan inay saxayeen ilaa wax yar mooyaane ayaan isla qirnay sida ay ku sheegteen laakiin kulmintan la kulmiyay baa mushkilada ka dhigtay iyo in sanadkii mar laga dhigo labadiibana wuxuu leeyahay ibn taymiya dadka qaar baa sida u sameeya waxayna qasadkooda wanaagsan daraadeedna ajar cadiima ayay ka helayaan wa tacdiimu min rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam weyneyn in nabiga weyneynayaan bay u sameeyaan ويا أركاس نسوي ورينيا أرتا كاز برتا إيديا إيهايا وحنا اللي كسر بلابيا أن مرة حتى قبل أبو إمامية على وقت هاي سجع إمامك يوحي أكيد هذين ابن تيمية حتى كسر بلونه اللي دعوة محمد بن عبد الوهاب ويعد الديني مركز الإسلام قرنا لقى هذا عد كلية الدين ودعوة محمد بن عبد الوهاب وشيعته waxaan doonayaa cabdulwaaxid marka su'aalahan aad ugu dhuxdaan su'aalaha dacwada sheekh islaam wadaysa oo hadalkiisa ah walaal yar qaybi walaal su'aalo way badan yihiin kowde mawlidkii waa gutiya gabagabadii wadaadkan ku su'aalo fara badan mustawa dhigay su'aalahaas chance ma haysan kuwa iyaga ma horta dhigayso chance oo haynaa ma kuwiisaan ka jawaabnaa kowde anagu kulligii waan ku wada jawaabaynay saddex baad haydeen waan ka jawaabnay time kii muu gaadhin su'aalaha micni wacdihaan baan wada su'aalaha dib baan ku dhigaa may kama jawaabsan mawlidkiiba maana guda galayba waxaan uga jawaabin intii aad hadlayseen labadiyad marka la isku daro wali maanaan hadlin ka warama wallahi baanaan hadlin adaa qaybinaye si waqtigan ibn taymiya horta inay ka bilaabay wixii culimadu waxay ka yiraahdeen looga bixin ibn taymiya ma haysa al-imam waxaad kala igu dartaa اللهم صل على الإمام الخطيب الشربيني توفي كوني أفر التمكي هجرية له مولد باسم المولد الروي في المولد النبوي أيوه حتى أولي بوحق لا يضر الدليل وين وحويان الخطيب الشربيني توفي كوني أفر التمكي هجرية ورجع دواء ويبغى نشعل هاي كر إن الرجع إن يكبل عبو إمامية انتي حسين أو سيدنا وكلا أيود دجان أو قلادي أعماشن لكل مية
weliba mawliidyana sameeyey kitaab mawliid la yidhaahdo kitaab mawliid la yidhahdo la sameeyey alifay aan soo koobo raggaasaan soo koobaya oo keliya inta iga raalli ahaada micnii arrinku inuusan ahayn waxaan anagu dhoobdhoobanay ama wax faadimiin intay yidhahdeen kadibna lagala booday uusan ahayn ee uu yahay wax ay imaamiyadii ku ijmaaceen masaladiina waa maxay baa la yidhahdaa marka wax la deliishanayo qodobkaas kow hay noqdo waxaa la deliishadaa alijmaac ijmaac iyo qiyaas iyo aslaynka oo labada xadiidka nebiga iyo aayaadka afartaa shay baa la deliishadaa masaladani booska ay ka joogtaa waa ijmaac imaamyada waxa la yidhaahdo waxay ku kulansan yihiin intaasoo imaam oo uusan mid khilaafa jirin qofka ijmaaca khilaafana oo yidhahdo waxay ijmaacu samaynayeen baa bidca ah ama kala kacsan oo mid wadaada ama laba wadaad meel la taagan inaan la qaadina shareecada agteeda ayaa cad oo daliiladii mid ka midu khilaafay ijmaacii buu khilaafay ijmaac sidii ay ku tahayna bal 5 sheekh keliya ama 10 sheekh ayaan bal kulminayaa waayahay الشيخ صالح عمر الملا أو كورمي عشان بقول التطبيقات كي يجري جاها قاهر الصليبيين الشيخ عمر الملا عشان بقول التطبيقات كي أها عشان بقول التطبيقات كي وقاهر الصليبيين سلطان نور الدين الزنكي ووقت كان سلطان كي إسلام كأها سلطان نور الدين الزنكي قاهر الصليبيين نيك الصليبيين تبتش به أها والاحتفال بالمولد من اوائل من احتفل علماء اهل السنه على المشرق الشيخ صالح عمر الملا وادسات شيكتي انكاس انو كهريي معنيه مظفر كهريي او سو دغيي صبرتا ما كسو بلامين الا iyo ibn taymiya oo noqonaya 700 isaasan ku xidhin doona 570 ka iga soo sultan nuruddin wuxuu kamid ahaa man akhas muhibbi almula wuxuu taagan yahay waxa leeyahay wuxuu kamid ahaa min culamaa micnihi ahl sunna min ahl mashriq الشيخ عمر الملا الموصلي المتوفى مع صاحب الموصل مركا أولاد شوقي السودان نور الدين من أخص محبيه رجع أبو خاصا أبو جعلي هيبقى السودان كا هي السنة هذا الكيسي إنك عبر شيء إنه حسي تشري ما إنه حسي تشري بس شكتان ما هو شيء لو دلك ولا صوفيها ولا صوفيها سمع هذا هاي وديجي سمع مركا السودان كي كلا السودان سنكي اللي شو وقت جانا وديجي كسع وياي نيكا اسغا waxaa la yiraahdaa liano kana yamla tananir al-jisbi ujti yataqawat biha wa kullu ma alayhi min qamis war nin deeq badan buu ahaa adigu culimada iyo fuqahadii waqtiga joogtay iyo madaxdii waqtiga joogay si aan taxo iyo ijmaacnimadeeda وقد ذكر ابن كثير في تاريخه wuxuu ku xusay markuu ka waramayo suldaanka nuuridiin ee dadka dhigi jiray madax iyo majawo wala dhigi jiray ilaa marka ay soo bilaabatay haddii ay micnii faadimiin lagu diidayo ilaa marka ay soo bilaabatay iyo xufaadan inta faraha la eg ayaa joojin horta وقال عنه ابن أثير وحلي في تاريخه مركو كورميه ضالعة سير الملوك المتقدمين بقر كاس سلطان زنكي إن معني كاكلية بلاوي فرح اللوجا قاعدين سيدي أسعتي واي يوصل دوّد نمعانو ما دام يهاتك يرست سؤالها سيسين أو بدن سؤال بد مرة إن سؤال واحد ليه هاي إنترنين أديكتي إلا أن تحو إن السؤال اللي يجي حق المركو أنا واحد صدق لأن محايل أنت هسو إمام بعد جاي دم أنت هسو إمام بعد جاي بسم الله الرحمن الرحيم لح بقول يكوبي لحنا كيف نطيم ينا بروحي كوريي عندي ديدي سؤالها أنت سو واي هذا حل مني أرتيك هذه وقت نور ما ذيك هذا شيخ الإسلام دم وقت في حسابين سين ما هو قياس بين حقوق الناس ولا الشيخ الإسلام ابن تيمية واي هي كويم سؤاله يروح عن يدكنا أرتني من كان مو فهم سنة أرت احتفال كان يو وحنا ولام با شيخها أن ليلة هذا أن يمكن واحد مريين ما أرتيك هذه يمكن واحد تاجنيدين ومن أحسن ما ابتدع ماي من أحسن هيدا بيسير واحد تاجنيدين إمامية حافظ وحيل هاي صحابة صميصي صحابة صميصي ولا ليك هذه بدريو وحيل هذين صحابة دبال دكتبي هذين صحابة دبال دكتي دليل بي ولا البهنتا كودي أنا سلقي سنو صحابة دبال دكتي وتراهدين صحابة دبال دكتي هاي هاسم ما يدق إنه أفعال اسكو ما هي سنة ولا وحن اسكو هاي سنة مالين قارة إن عيد لقى دكتو موصل مرة دكتو حفل لقى دكتو ليسويمد ما ابن تيمية كوي ما تدو ولا نروح كلارن بلاد وكاجة شوابية ابن تيمية وكاجة شوابية لكن صحابة سمايصي دليل بي ولا البهنتا كودي inay maalin isu yimaadeen waama tan maslaxa iyo maanicu sheegayo maanici mu sheegin waqti bay waayeen buu yiri de waqti ma laayeen saxaabo fara badan oo
markay salaada tukadaan buu nabigu isu keeni lahaa inagaa weyn yani waxa iyaga weeyaan ma inagaa weyn inagaa weynay saxaabada maanica u diidaya iyo nabiga waxay yiraahdeen sababtii meesha maslaxadii keensanaysay ujeedkii sababtii keensanaysay meesha way taalaa buu yiri isaga yiri mood laakiin isagu wuxuu taagay xilliga saxaabta nabi maxamed waqti inay u hayeen in maalin walba nabi maxamed inta iskugu yimaadaan xusaan laakiin 12 ribcin inay ku gaariyeen wiilo ogoliye wadi loo gasha maalin walba wax xus jiray taanagu maalin walba wax xusnaa tamiyel diideen wal mesla diideen cid kuma diidan maalin walba waan xusnaayo maalin walba nabiga waan xusnaa maalin kaliya la xusay ku soo hadhay waxa soo hadhay ibn taymi warkiisa saxaabigan mariyo hortay culimada banaysa ihtifaalka culimada banaysa ihtifaalka waxa kamida yani waxa weeyaan waxa kamida xafid al-Iraq baa kamida asqalaan baa kamida ibn Hajar baa kamida horta ikaadi ma banaysa waxa badan kuwa diidan ma badan horta ikaadiyo waxa diiday ihtifaalka annaguna waxaan tirinaynaa inta ogol inkuna waxa tirsan inta diidan taasaaba su'aasha soo gabagabeynayay ikaadi horta ikaadi wahabiyo kun iyo koob may warota kun koob may bilaamay xufaad may ka horeysaan sheegaya maxamed cabdiwahaab wahabiyo maxamed cabdiwahaab sug wahabiyo maxamed cabdiwahaabe xaafid ibn taymiyo tiisi u qaafsado maxamed cabdiwahaab wahabiyo dhanba diiday maxamed cabdiwahaab wixii ka horeeyay sheekh u dhageyso culimada banaysa waxa kamida ibn Hajar baa kamida xaafid as-Sakhawi baa kamida faakihani baa kamida culimadaas waxay sheegeen ilmaha Sakhawi culimada ogolaatay kamid yihiin ogolaaday kamid yihiin Sakhawi baa kamida ibn Hajar baa kamida waliba iyagu yani waxa weeyaan waliba waxay sheegayaan mawlidka wax xilligoodii la sameeyay jiray waliba ay ka hadlayeen way yara istixsaaneen moogtahay laakiin kuwa diidan culimadan ku tiriyay iyo kuwa ogol waxay isla waafaqsan yihiin saxaabana inaanay maalin kulmin nabina aanu samayn saxaabana aanay samayn taabiciina aanay samayn atbaacu taabiciina aanay samayn isla ogol yihiin macali ibn Hajar ba sheegaya ibn Hajar wuxuu leeyahay aslu amali al-mawlid bid'ah lam tunqal an ahad min as-salaf as-salih fi al-qurun ath-thalatha ساسوري وابن حجر كل مين تقال لم ينقل عن أحد من السلف الصالح في القرون الثلاثة وإنما حدث بعده حافظ السخاوي بيري ابن تيمية كويمي ابن يا أستاذ هاي لما يصير وقت يقولون وصلكم هذا وإحنا نقول بنا مسائل كلو أركن تحت الله ابن تيمية كويمي ابن تيمية يعني وحويا وحكاه اللي اللهم صل على محمد وحكاه اللي أرتلوه شال لقيت شوية هذا الكلام ابن تيمية لوه شال لقيت شوية ووجهه كوبادي عدة ابن تيمية كهلي waxaan iyadoo ka jaahilo aan garanayn waa cidii samaysay waxaan banaaniinteedu inay banaan tahay cidii waxaan ka jaahilahay ee samaysay yaani waxa weeyaan waxaan samaysay laakiin aan garanayn inay iska wanaajisayno sidaan oo kale loo dagay uun haday sameeyaan ayaa wuxuu tilmaamayay yaani waxa weeyaan xusni qasdiin baa lagu abaal marinaya lama garanayn buu muqoraya kuwa aan garanayn buu qoraya dhageyso ma horta dhageyso ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'a kala wuxuu oranaya yani waxa weeyaan الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية يعني تاريخ شيخ دوام معاصر ويا المالود والشيخ ابن تيمية شيخيد أبان tilmaamaya يكون سؤال بقول دور سؤال كبر انت ابن باز أما لبادي يكون يفرتين سو قاعد بصورة قلا تاريخان ده انت يعني خلايو مركب ابن تيمية كتاب كالف تركيسة متقدمينتي حتى المعاصر ما تبقى إن كنت أظن السنين دي ما ابن تيمية لف تركيسة ما عرفت واحد بده سؤال بنكو يدينيا بدي ببرشدنا دوان السنة ينقول عقوشة احتراما وحنرب هنا هيدودينا إن نقول نقول مرة يس جيتن صح لح بقول يكوبي لحنا كي هجرية ده ميلاد هجرية صح وحب شيء ابن تيمية صح شيخ كهرية ابن تيمية أودي دي أركن مولد كذا لشهد النبي محمد مشري مسمشرو يوسف كوب أن سؤال شاهدان كاجت جوابه يعني حوي علماء الدين ده حكم ده وقال هذا سو وهذا القرصة حدان كورة أو سجية هرتا هذا الخاص سجنا ده ابن تيمية لفتركيسة مولد عبد المجيد والله واحد ترتا دقيس هاي ما دقيسو إنانو بنينا بيك تصنع سجل لفتركيسة أيا هذا كان في حق من فعله جاهلا وقف كي سوق جاهل السمية ابن تيمية مجموع الفتاوى
hadalkiisa hadaladiisa waa kala sax dee si fiican ku tilmaamayo, raacay uu ku bidcaynaayo, taadaan ku raacaya hadal mujmal inaad iska qaadato maaha walaal ibnu taymiya hadaladiisa kale su-aashaydu waxa weeyaan ayaa tafsiiraya su-aasha haddeer taagan waxay tahay qodobkan uu tilmaamay walaalikaadi warikaadi wayna dhegeysteen inaguna wayna dhegeysanaa markood ii sheeg wuxuu yidhi su-aalaheena ka jawaabaynaa iyaga su-aalahooda hartaan ka jawaab nebigaa soo xaadiraya buu yidhi nebigu markuu soo xaadirayo ee imanayo ee goobta imanayo miyaad ma aragtaa nebigu maxaa kuu sheegay nebigu inuu yimid maxaad ku dareentaa saad ku garataa uu soo gaaro maxaad ku garataa ma calaamad ma qoraxdaasi noqota ma calaamad kala dhacda ma adduunka isira bedela ma barwaaqada badata nebigu inuu yimi maxaad ku garatay haddaad garatay inuu nebigu yimi ma adigu baa gartay mise dadku waa wada arkeen oo wada arkaa nebiga waa wax aamo dadku wada arkaan ya way su'aal isweydiin mudante nebigu inuu yimi maxaa lagu garaya su-aasha heesaha ku saabsan heesaha kuu timi iyo miisiga heesaha waa halkan doonayo waay iyo qaadka iyo qaadka ha heesaha kuu yimi horta mee qaadku iyadu dee waa moogtahay ما يورت دغيسو ميسغا ومن الناس من يشتري له الحديث له سيسوي ayada shanaad suuratul luqmaan soo ma jeedin له الحديث عبد الله بن مسعود wuxuu ku dhaartay saxaabada nabiga quraanku xilligu soo degay bay ogaayeen Soomaa quraanku soo yaani waxa dhacdooyinka quraanku markuu soo degay yaani waxa weeyaan wada sax waa cid quraanku la hadlay ugu horeysay saxaabada weeyaan عبد الله بن مسعود wuxuu ku dhaartay inay heesaha tahay qataada ku fasiraya mujaahid baa ku fasiraya tafasiirto dhan bay ku taala hadda ku tix karaya oo wixii halkan igu jiraan tafasiirtii oo dhan anuu kaan yaani waxa weeyaan kitaabada ku daar kara heesahaas waa qodobka marka ayadaas waxa adeensay inay heesaha tahay inay heesaha tahay aan heesu banaanay ama xiladaha laakiin badi heesaha madama eray ahaa ma de erayadu fiicnaade erayo fiican oo yaani waxa weeyaan shakhsi iyo de midxiga horta hees lagu sheego waa qalad xaraan erayo iska wanaagsan oo de shicriga oo kale galay inaan sifeynayn wadaniyadoo kale iyo mayno masaladan heesaha manab amaakiba oo mawlidkiiba ku jirta heesaha idinka soo galiyo wuxuu yiri kada baro taagada anu hees ma soo mawlid ku tacaluqaa miisiga wixii mawlid ku tacaluqaa musmo isaga soo qaaday ha musmo ma banaana waxaan horta ka hor mawlid marxaba ma ku wada ma banaan hay labadiinaba de waxa isku dayay horta intii karaankayga ayna dhaxdhaxaadiyo hateen la'aan baa naga bartaan naga jira su-aalahaad soo bandhigteen in si qodob loogu dul istaagan u baahanay iyaguna waxaan u baahanay qodob inay igu istaagaan si waqtiga inaan soo koobno waxaan doonay markii saddexdiinu inaad hal qodob iga soo qaadaan qayb kamid uu ka jawaabay Soomaa laakiin hadduu sheekhu hadlo ama sheekhu hadlo su-aal uu jiibo hadalkii muran buu keenayaa waxaan u baahanahay su-aalaha ku soo dhawaada waay dhageyso ka soo jawaabtay waay su'aaluhuna weydiin waxa nabiga hargeysa markii baado sidee lagu ogaan karaya waa su'aal ijmaac maxaad uga jeedaa ijmaac waa maxay ijmaac waxa ka jeeda inaan ku sheegay imaam shacraawi waad garanaysaa oo mucaasir maxamed mutawalli shacraawi kaliya wuxuu ka qoray xufaad waxa la yiraahdaa ninka xifdiyay 300 oo ka hadlimay ijmaac waa maxay ijmaac de meelbees ma rabaa inaan ku dhaado horta maya tahay ijmaac marka baabka usulka la joogo 200 ijmaac anu xufaad wax ku sheega ma aragtay usul fiqigu duwan gashay walaal kutubta usul fiqigu warqaad baa ugu yaray ijmaac waa maxay ijmaac wax de xufaad ku sheega lama aragtay xufaad ma aha ijmaac waa waxay culimada islaamka isku waafaqeen ama muctamadku intoodii badnayd Soomaa sax misla horta qeexitaanka misla ogal wixii tahay culimo baneeyay moogta way sidaan ku jawaab علم بنيو يتحول إلى ويري واللباتن إلى ويري لباتن ما إمام الشعراوي محمد متولي الشعراوي كتاب كألف علم المولد كتاب كألف حتى واحد كلامه لما بقول يقط تنقف أيوك أو حفاظ أصدق بقوله حديث مد والبو حفظين كبضان هذا أنت ويا حافظ لقونا وسيود كم بداية وعراقي كم بداية ابن حجر العسقلاني كم بداية أصدق ابن حجر بيه كم بداية شرحية صحيح البخاري كألفين أو ابن كثير كم بداية انتوا waxay ka alifeen kutub mawaalida kutubta siirada waxa loo kala qaada khasaa'is iyo shamaa'il iyo Soomaa kutubta mawlidka 20 ma aha 20 ma oran ajaraduna way duuban tahay 250 qof in ka badan oo xufaad ma culimo ma ee waliba wax ka qoray
weeyaan marka hadda masaladan waa ijmaac weydiin walaala joog sugorta inala dheeraanaysaa weji ibnu kasiir baa ixtifaalka wax ka qoray buu yidhi kitaabkiisa horta inoo soo saar kaasoo qodob imaamyada dhanba waa qodob labaad 500 baan batixi karaayo hadaladooda diiday ixtifaalka ijmaacu daabid buu u baahan yahay moogta 500 baan batixi karaayo diiday 500 moogta oo culimo beelisid waa tixi karaa hadda culimo fara badan oo diiday waan tixi karaa oo inta ay sheegan in ka badana haye ku diyaartiin hal kitaab ku diyaartiin dhageyso ijmaaca marka uu ijmaaca ka hor imanaya ijmaaca ka hor imanaya hal kitaab oo tahay anoo kitaabkaas tahay kitaab adigu ii baar ibnu kasiir kitaabkaas kasiir ii baar ma ibnu kasiir kaliya 250 baa lagu taxayaa 250 ibnu kasiir ii baar horta ijmaac maaragteen waa diyaar ijmaac maaragtay culimada uu tahay ijmaac ka hor imanaya ma haysa hal qof oo yiri waa lagu ijmaacay ajmacat calayhi umma hal qof oo sheekh oo yiri hadalkiisa soo saar علماء بنية ما إجماع ما نقطة ده أنا بقول علماء بنية وأنا كرا علماء بنية ما إجماع با ابن كثير وكان دقيسو وكتاب كان في مولد كان مدة كلام واحد كاسية بالخورن كوانا بليانس بالخورن لا شيء دي النبي جايو نوتشنتي سوى السيرة ده سيرو كشكانة دقيسو مولدكم حق شكية إرجع مولد نوقع توا إن هالمالين مال احتفال كان مولد كال إرجع مولد كال مين ولا شيء لقى ورا احتفال كان ينو كور مين احتفال احتفال وقلاضي وقلاضي ابن كثير وكان برتنا كاغا اخريا isagoo ogolaaday oo leh sida noocaas xataa iyo kulminta noocaas ayaa saxdii ku akhriyay kayfiyadaas horta dhigso bartana iyadana waxa isweydiin wala ijmaacan kaaga hadlayday علماء هل عر حديث كانت هل شيخ أو يري أجمعت عليه ومتى إجماع ذي كان كاجا جوابه إجماع سو مرة هبل بانشة أنت سوا ولا هلا يدا إجماع ما هذا سو هل شيخ ما رأى إجماعي ما وحنا نرى الله إن ابن تيمية خلافي فكهاني وخلافي شاطبي إجماع حقيقي علم داس علم ليه هاي حقيقي مقيم ابن الحاج وخلافي صح هل شيخ يري أجمعت عليه الأمة وطاينوش شجعان وقضوا سماها لبعض ما كوين أن وضحنا اختلاط كويمي اختلاط وين قرنت يعني اختلاط كويمي تم يجو من نفتو ذي كهليين ما رب بدنو لقد دبالدقو احتفاق لأنه قلت أما يجو هاد دبالدقو احتفال من كور مني تيفيا لما قاعد دعوته مقدشة أو كله dumarkii hore kusaasay soo dhex yaacayaan laamga la soconaya oo soo timka bal wada socdo soo qoosay markii nabiga la sheegay baad ka guweetaa hargeysa 13 mawlid baa lagu dhigay kii laba xafladood hal meel lagu wada dhigo rag iyo dumar isku yimaadeen kan asaar sunana wala isdhex fadhiyo la isdhex booday tan hotel ma soo lagu qabanayo ka war mu'tamaraadka dadku qabataan war mu'tamarka qabateen baa la isdhex booday xafladaha ku timi dad dumarka iyo raggu halka kala fariistaan dawaan kala ognahay isma ikhtilaaf tan ma way imaadaane isku dhex tarsan baa la yiraahdaa waxa u dhaxaysa masaafo aad u fog baa u dhaxaysa ma ogtahay masaafo aad u fog ayaa u dhaxaysa ina waxaan sheegnaa waxaan la isdhex boodiyo dumarkan iyo waxaan iyo maalin leeso dumarkii guriyada laga soo saaro oo ma ogtahay marka muqdisho maxaa ka dhacay tiri muqdisho saas la soo dhex yaacaya durbaana la sitaata durbaan su'aalaha ku weydiiyay muqdisho durbaa laga ma tumabe marka aday soo saar xigta walaal ilaa daawasi waxa weeyaan ma dhageyso ka jawaabnaade culimada markaynu soo gudbay jawaabta kaarba waxay ahayd salafka sheegaysa lahayd faadimiinta waxay sheegeen okay iga jawaab midda ma ku soo wada way culimada salafkan ku yiri culimada salafka tilmaamtay arrinkaas inaanu banaanayn way badan yihiin qaar kamid ah waan sheegay horta xilmay bilaamay salaf waxa kamida su'aasha kala reebay walaal tajuddin maxay magaca kala reebay salafku waxay ka bilaabaan halka waa saddex qarni sida nabigu kaleey salaatu salaam qarnigu bilaabay faadimiinta yar dhageyso horta ay ka dhaxkini qarniga afraad waa saddexaad ma ahayn dhageyso faadimiintu qarniga afraad ma dawladda faadimiinta xilliga asaas qarniga afraad 913 iyo 12 oo waafaqsan 300 hijriyada haddii google ka gali wikipedia yar dhageyso saddexda qarni ayaa qorayda waxaan saddexda qarni ayaa la isku dhaahdaa salafka tajuddin al-fakihani wuxuu kamid ahaa culimadii maalikiyada wuxuu yiri la a'lamu li hadha al-mawlid fi kitab wala sunnah
maxay xilligu noolaadeena 300 baynu isla qirnay inay yihiin salafkiya taariikhaynu magac dhabna markaan sheekh kasta sheegayno xilligu dhintay ah ha sanadii 704 masalafa marka Ya. masalafa sidee de masalafi baa waqti salaf muu noolaa القرون الثلاثة المفضلة ما كم هاي 700 ba qurun mufadala dhegeyso saddexda qarni nebigu uu sheegay halkay ka soo bilaabaysaa waad kacdee waad kacdee fadhiso وعادي وعادي صدق soo diga xanaaq ولا صدق هذا قرني حقاس ما خلق dhegeyso dhegeyso maxamuud hilmaamku marka ma jiro hadalkan ayaa hordhigna ma qurux badnayna anu ha ka jawaab si sax ah haye ku soo marka arrinka qolka aad tiraahdan horta ijmaac culimadu waxay isku waafaqeen in arrinka aanay bidca ahayn ay bannaan tahay mawlidku horta meel kutubta ay kaga taalo idinka sheegi doonaa su'aasha أواش أي كيد هذين بكون تشتاون anaguna aqwaashiisa oo ku sheegayna culimadii Soomaad garan marka wuxuu oranayaa aan ku soo koobay xawee saddex su'aalood baan weydiinaya arrinkan waxaad moodaa hadalkiina in tanaaqud badan ka muuqdo mar waxaad tiraahdaa waa arrin sharci هي وشرعي waa sharci mar waxaad hadalkiina dhexdiisa oo duubantayada maqli doontaan inaad tiraahdeen waa arrin bidca ah laakiin waa bidcatun xasana هي su'aasha idin taale waxa weeye حسنا شرعي ما waxa idin waxa su'aasha idin taale waxa weeye شرعي هي المركة bidcatun xasana Sharci halkay ilaahay sharcigiisa kaga taalo idagayso eeg bidca sharciyeyna sharciga ilaahay ku taalo idinka cadeynaya way waxaanu haynaa qowlka nabiga qowlka nabiga soo maad garanaysaa nabigu wuxuu kullu bidcatin dalaala bidca kaste waa lumitaan soo maad garan waxaad tiraahdeen oo qowlkiina kamida oo tanaaqudkiina kamida mar waxaad tiraa arrinkan waa sunne هي marna waa mubaax horta ma idin kala soocantahay shayga sunnada shaygaas waa sunne iyo shaygan waa mubaax هي waxyaabaha sunnada waxaa ka mid ah qofku cuntadoo kale labiska waxaynu kaba xidho waxyaabahaas ka mid ah inuu wax cabo sunnaduna waa wixii nabi maxamed lagaga deynay marka bal idinku iswaafajiyo marna mubaax baad ku sheegaysaan marna mubaax baad ku sheegaysaan dhageyso marna mubaax baad ku sheegaysaan hay dhageyso marna mubaax baad ku sheegaysaan marna sunnad ku sheegaysaan bal qowlkiina horta iswaafajiya waa ta kale marna sharci baad ku sheegaysaan marna bidcaad ku sheegaysaan idinka taana iswaafajin doona waa ta kale shayga cibaadada ahi wuxuu ku sugmaa laba arrin waa al-ikhlaas والمتابعة إن أرين كان كايه إله الدرادي تا قفك قلبي يسا إنه قلمين وطلبات متابعة ما عد والنبي عليه الصلاة والسلام إن النبي أرين كان عبادة ده أتكجد ينس أنا دي سو كوب مولد كان إياه احتفال كان نوعنا إخلاص إن إذا كانت هاي أنا تاس قلبي أنا ما طالعان صمت قران لكن إن النبي كجد ينس أنا النبي وح السماء وياهي ayaad sheegaysaan saddex su'aalood arrinka sunna mar baahanahay marka mawduuca ugu dambeeya markay labada su'aal ka jawaabaan qarniga saddexaad uu yiri moogta su'aasha ummadda in loo cadeeyo aan halkaa yar u saxo halkaa qarniga saddexaad uu yiri moogta الشيخ علي محفوظ الشيخ علي محفوظ هو بس كوسي كان صدق قرني افراد ما هو قرني افراد انه يهان كو شيغيا الابداع في مدار الابتداع كتاب اللي يرادوا لي الشيخ علي محفوظ ولاد اللي يرادوا مصري بوها وحت الماما اول من احدثها بالقاهره الخلفاء الفاطميون في القرن الرابع ده هو xilliga sameeyay dawladda xilliga la aasaasan 300 ma dhageyso sano kadib bayna sameeyay hadaan qaada ku raacad wararta dhageyso qarniga afraad inuu ahaa inay ahaayeen ayaa sheekhu cadeeyay barnaamijkeena wuxuu badan doonaa su'aalaha jawaabahoodii in la isbasti waayahay waana ku wada halka qarniga afraad inuu ku sheegay saddex su'aalood qarniga saxaabada nabiga kaleey salaatu salaam Abu Bakar wadiga garanayo godka qaar xiraa wakii nabiga ka saari jiray godka soo u jeclaa nabiga ma su'aal maaha dhageyso ma su'aal ku weydiin maayo waniga buu jawaab yaa dhageyso su'aal ku weydiin maayo marka mawlid kaale وإنما الغرض أن هذا الاتخاذ هذا اليوم عيدا محدث لا أصل له
فلم يكن سلف ولا من أهل البيت ولا من غيرهم وحي قنن معها من اتخذ ذلك اليوم عيدا حتى يحدث فيه أعمالا إذ الأعياد الشرعية من الشرائع فيجب فيها الاتباع لا ابتداع. هذا القيس وعدي ابن تيمية. مسألة كسر سبق كدعي أبو حنيفة كدعي باجوري ما حل مسألة فوق مدها حتى مسألة سلف خلاف فوق تحديد كيس باجوري أشاعرة كم شافعنا أي وحق بقرن قشنا هذا سلف سوقرين شورت تحد بك يلا صحيح كود سكال كوب سكاشنات إيه اللي يكره مركب وقول بو هلاي قول بنا وافق سمك عدب من الهواء هذا صور كرنا عدب من شافعنا هل ما نهلك مجرو لكن بالموت والقوة والهواء ما يرت ما إيدا شن سؤالات بان هذا ركوه هي أفرتي سؤالات سؤال ما يكون كم ويديني سؤال واحد كهرباء سؤالي كوباد إن ديار كله هريس تي كوباد واحد ميكروفون كود أرتاح صوت عرفت بس حسوس إجماع هذه وخلاف كهر إجماع لما وراك رو إجماع شروط بله يود خلاف كوري صح مرحبا إجماع من قلنا خلاف وين الكوري ما فينا قراءة سؤال لبدينا بيجا مصر لما بانا هاي معناها كنا معنا قصان وفهنا عندي قصد ويقول لي بدأ وحسن قصدي قصد كي كوريسا بسم الله قصد كي ميلتي دماغ شيء داتي سنة لو قاعد ترسيني لا تنسى لو ترسيني ومحل فعلي وروي محل فعلي وروي هذا وحي لا سمعت محل فعلي وروي لو قاعد كتكلم ابن تيمية والله قصدي بهذا المحامش لو كان هذا فعل يعني قال حالي زنت ما يقف كان نيوان أكسب نيوان أكسب بحلو جنيه سوى نفسه من فعل سمايني سوكر كل سنة في سمايستان فعل عام بقى بس لكن قف نقولها نيوان أكسب ويقول هذا إنه حرام هنا موجين نيوان أكسب بسمي يا ده كبس من تلك أنت كبني إلا واحد ترجع على سمية ارتكاي ارتمرك معارض يجيسو هذا بوخ كان دقيقة لبدينا مسافر سؤالات ما يا هدان تاد دايبة هردان تاد دايبة وهدان تاد دايبة ما يجي ولا شيء ما يجيسو هدان تاد كوب دايبة إنه تيمينو بنيته كوب دايبة هاي ما دي حنا هدان كاجا سو قادر بنيبة وكو قريبتها ومسلم تاس كاجا سو قادر بقى مركي وحسكوري مادان مركي ده هرت من جواب سؤال يورك هذا هذا ما يصير هذا ما يصير هاي وري إلهي هذا ما يصير وان كوصل لمتي تي وان كوصل لمي لكن مركي تعارض وحبا لك الرجحة ابن تيمية دين كل الرجحة أقواش كود ذي فربضان هل قالوا قولي أنت كود ذي فربضان يا ابن تيمية كبس قال إنه ديدي ساعدوا إنه ابن تيمية ديدي ما حدان هذا كون راعه أو ديدي ابن تيمية يعني ويا كتشوفيني سؤال waxaa kamid ahayd nabi maxamed cali sallallahu alayhi wasallam waafaqsana inuu dhashay maalinkan 12 rabiicul awwal isagoo oo daliishaday sheekha cad waahid in nabi maxamed cali sallallahu alayhi wasallam xataa culimada falaga loo yimaado inaanay qabin mid kamid ah kutubta aad uga waramay marka horta cilmiga falaga hadii wax uga baxsan yihiin baaban ayaanu cadeynaya nabi maxamed عليه الصلاة والسلام وحد شيء لبية تونكي ربيع الأول سامع نور لبية تونكي ربيع الأول عام الفيلم مركا دب له راعة تاريخ برتجي له شيء كأنه بيجي أبرات فلق الجو حسابي شريد واجه هره برتج حمل بنغانية مدام يسا حلقة كلا مركا اللي تشوجو تاريخ دي حتى تاريخ برضه بأن النبي محمد عليه إجماعة مركو يوضع سؤال شيء ما سوتها تاريخ ذا أنقوة والله عد واحد دو ساش خلاص وين بلعب بس يا أخويا وين سؤال شاس اللهم صل على محمد سؤال شاس ودم بيسمك هيدا عد واحد سؤال شو ودم بيسم ما الاسكوة فقسية والاسكوة فقسية أنا ما نيم حد خلافه كتاجية لكن معظم إياه أنت تذكر بدين علماء وحي قبان إن لبيه تفكر ربع الأول علنا السيرة وصاصير دقان
xataa tad soo qaadataan ee ah 12 rabiicul awal baa la isku waafaqsanyay in nebi maxamed dhintay la isku waafaqsanay waxa kutubta siirada qaarkood dhigayaan 300 13 bishii rabiicul awal nebi maxamed cali sallallahu dhigtay may waa la isku waa khilaafa ka tagan qudhigeyga khilaafa ka tagan baad haddaba haddaynu taariikhda meel saarno on u raacato doonayay ahayd cilmi lfilig cibaada masalada kale ahayd culimada ijmaaciga barow talabaadna nuga jawaabo waxay ahayd su-aashii horan way xasuusinayeen ما سؤال كمان دقين سؤال ويديان سؤال ويديان حسوسنا كودي هذا مرة متفاهم قبضته اسكب ودان ده مشكلة موت السؤال دقيسو waxaan ku weydiiyay horta 12 rabcaal waa loo badan yahay wiiro lama badna cidda tii waa loo badan yahay sheegaysa wasi mashhuurka caanka ah mashhuur iyo waa loo badan yahay kala duwan yahay waa la isku khilaafay waa la qirtay sax cibaado shay cibaado ah oo ilaahay loogu dhawaanayo oo wanaag ah oo ajar laga helayo oo khayr ah see la isugu khilaafaa ka 12 rabiicul awwal qaba inuu dhashay ka sagaalka qaba hadduu sagaalka isagu dabaaldego ka hor see cibaado la isku waxaan ku sheegay shay wadu cibaadaya see la isku khilaafaa haye ha kaaga jawaabo waxa jirteen mar horta culimada nin kamid uu radinaya qolyaha suufiyada baa wuxuu yiraahday anagu nabi maxamed maalin walba waan xusnaayo salaadaha waa anaga shantaa ku salina buu yiraahday anaga marka laga imaado salligayaga kale iyo salaadayada iyo qof kasta oo dariiqada qaadiriyada haysta waliba sayliicida boqol goor in ka badan ba wardigiisa maalinlaha ugu jirta in maxaad ku sameeyo horta taa si guud baan kuugu sheegayaa in la kala badiyo taalasku ma kutubteeda adiga aqoon badan tahay marka ku soco afcaasheena ka awlaadina ka leeyay ka abdi waxaan doonayaa si aynan u dhaxgelin si aynan iyaguna loogu dhaxgelin in nagina u deeyno hadda fiidiyoga lagu dhaxarki doona 40 daqiiqo oo waadix ah hadan laga soo wallahi anagana 20 ayna ahayn 40 way ku soo dhow takhalbudaadka dhacay ku soo dhow waxa jirta nabi maxamed cali salaam sida afka cabdi waaxid afkiisa saa ka soo yeedhay wuxuu tilmaamay inuu nabi maxamed cali salaam qolooyinka falagu isku waafaq diidayihiin muxuu ahaa darashadii nabi maxamed haddii la baaro oo cilmiga falaga wax ka yaqaano doon noo iclaami burjiga xamalka laydhaa 12 rabiicul awwal iyo waqtiyada inuu dhacay kaaga darane 500 baan filaya xagga muxuu ahaa abr إني محل على أساس تاريخ الميلاد كذا شيء تاريخ الطوفان لو تريد شيء حساب وين كدودنا أنا مرجع بلاس أنا أقول كودي سؤال كوريجنا فلك كوريجنا تعرف كذا كذا واجد إنه هو كان عبادة ميا شيء عبادة صار سوق خلافات تقصد ولا خير هلا مثلا خلافية أو خلاف كتها تاريخ خلاف كتها جالس عبادة الله قاعد جانا عبادة هدي مرة هدي لسكو خلافي هرت طلبية تفكر بالأول كي كتير تشرع إلى عبادة لسكو خلاف حتى عطينه النبي محمد عليه الصلاة والسلام محوها آنور دالن أي الله حصيا سمالك أنا يويناتو وما الله قصعناته خلاف كنا أنا دي راعي وحن إيجيا إذا أنت يهدف كوجين أي تهاي waxaan sameeynayo wax qaldan mu ku jira haddii la waxyaabo qaldan ba ku jira oo qaad iyo waxyaad ka dhawaajiseen inuu sheego inuu ka jawaabo haddii leedin wax qaldan kuma jira marka si guud loo hadlayo ay culimada suufiga isku waafaqsan yihiin oo nabiga la amaanay saas hatta qasaydka qaar kood diida ya weey ayaa la dhigaya kaaga darane maalinka mawlidka arabsi wax lagu xusaa 8 meel kale wax lagu xusaa 4 عبادة ما هبا waxaan la sameeyay cibaada laakiin maalinka laftiga cibaada ma aha maanaga qabnaba damxada may mawlidka illa wixii la qabto ma mawlidka wixii la qabto diiday moogta ay dhageyso hadii eegagag maalintii nabigu dhashay hadii tixgelin leedahay la tixgeliyo si gaar ah loo eego oo maalin gaar ah la isku soo ururo sababta la isku khilaafay waa maxay يا أج تايي كوروري مالك عيدة مركنو تاريخ دي عادة دي ويد سؤال شيء قلت شو لحدي باهي صدح باهي أفر باهي تاس العبادة ما هم كلها أستاذ برا عبادة ما لكن عمل كلا سمين يا خير يا عبادة مالك جار كيس ما ورنا إنه عبادة مالك لا بعد أنت سميت عمل كمدي تنسمع ما مالك دي أنت مالك واحد إعلان مهم مصاصم. أقول برتا كل شيء بيامينية وهذا اللي ظهر له كسب بحدونا هذا الكوجود بيويان مر وحويان وحني أصحابتي ما يسمعين
kuwaasi may samayn tani may samayn ilaa ibnu taymiya ogolaaday baa keenay inay kaamiradii waktiya uga dhici kartaa dee iyaga laftoodii baa yaabay su-aalihii faraha badnaa daraaddeed wixii culamo ka hadashay in markaan bilowno inaan dabcano inaan tirinana oo ijmaaci 250 imaam oo baneeyey oo ragga xufaadda ah ee cilmigan looga daba dhufanayay ah iyo iyagoo aan mar gooniya ka hadlo oo bal 100 wadaadoo diiday noo soo taxa oo anaguna 250 anaguna 250 kanaan taxi doona السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهجاك داود يالنت واحد لو قصوا لما تدود دي وده حيصير علماء قادرية ده السلفيين تا أما علماء السلفيين تا قادرية ده أنت واحد دود لسه عسيني يعني جوا بره خضر كوسار وحنقعد جوا هنقينا استوديو هنروح لبضان له أرضا فيلمز ترى أنت كل مدونو برنامج كانوا كلام إذا ما دود لم ده وحد جيت جاي سلام عليكم من رب الودود والكرم.